kulan isugu jiray muujinta taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo soo dhaweynta madax ka tirsan Somaliland ay maanta ku qabteen dalka Jabuuti xubnaha jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalkan jamhuuriyadda Jabuuti. kulankan ayaa waxaa hadallo ka jeediyay mas'uuliyiin kala duwan waxaana ku dheeraadeen u mahadcelinta madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyaga oo bulshada reer Jabuutina ka codsaday inay madaxweynaha garab istaagaan isla markaasina ay kalsoonidooda dib u siiyaan maadaama muddadii uu madaxtinimada Jabuuti hayay oo horumar ballaaran u horseeday dalkiisa iyo dadkiisa. xildhibaan Cabdulqaadir Xasan Indho oo ka tirsan golaha guurtida ee Somaliland oo xafladaasi khudbad ka jeediyay ayaa u mahad celiyay soo qabanqaabayaasha kulankaasi isaga oo jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalkan jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyahooda Fuaad Saxardiid Caabi gudoonsiiyay bilad abaalmarin ah oo ay u garteen. wax kasta waxay ku xidhan yihiin isku xidhnaanshaha wada qabashada haddii shalay toole de xisbiyadu tartamayeen mid un baa heli lahaa waa kii aynu dadku doonayay un baana helay de waa la kala baydhayaa maalin laakiin isku duubnaataan anigoo ka wakiila gudoomiyey xisbiga kulmiye oo xisbil xaakimkii dalka ah waxaan jecelahay biladii reer Jabuuti la siinayay inaan gudoomiyihiina idinku dhiibno oo gudoonsiino oo qoorta idin sudno oo ay noqoto waxaad kaga duwan tihiin jaaliyadaha kale Soomaaliland. waa mahadsantihiin waa soo dhaweyntana waa idinka mahadnaqaynaa wadankiina waan idinka wargeynaynaa bahalahanina meel walba way u baxaan de waa ogeydeen wax libaaxiyaa loo keenay Jabuuti hadiyada imikana fardaanu keenaynaa isu dhawaanshaha iyo walaaltinimada keenaysa. gudoomiyaha jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalkan Jabuuti Fuaad Saxardiid Caabi oo isagoo xafladaasi soo agaasimay ayaa goobta ka sheegay muhiimadda ay isugu yimaadeen maanta oo ku tilmaamay taageerada ay u hayaan madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle isaga oo tilmaamay in bulshada reer Somaliland ay abaal weyn u hayaan dawladda Jabuuti iyo shacabka walaalahooda ah ee reer Jabuuti. Fuaad Saxardiid ayaa ka codsaday madaxda Somaliland in muwaadiniinta reer Jabuuti ee degan Somaliland socodkooda loo soo fududeydiyo xilliga doorashooyinka ay ka dhacayaan dalkan Jabuuti bisha Abriil ee soo socota si la mid ah sidii ay dawladda Jabuuti muwaadiniinta reer Somaliland safaradooda ugu fududeysay xilligii doorashooyinkii Somaliland ay socdeen. ugu horeyn horta waxaan ka salaamayaa shacabweynaha jaaliyadda Somaliland ee Jabuuti ku nool oo soo qabanqaabiyaha hawshan kana soo qayb galay soo dhaweeyay waqtigan walaalahooda ka Somaliland inagoo koobi karin waxyaalaha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo tahay mid aad u tiro badan kulay waqtiyadeed iyo gooraheedna laga hadli doono waxaan leenahay inaan isku ogaanay inaan garab taagnaano madaxweynaheena presidentkeena Ismaaciil Cumar Geelle ilaahay cimrigiisa dheereeyo isaga inuu garab taaganahay guud ahaantii. waxa kale oo aan ugu mahadnaqayaa kelmadda xildhibaanku wada dadka reer Somaliland ee reer Jabuutina ah ee waraaqa haystay halka degan in loo soo fuudeeyo sidii inaga bal inoogu fuudeeyay markii aynu Somaliland ka soo footeynay inaga xisbi kastaba ah iyaguna islaas oo kale soo galbiyaan una soo ururiyaan dadka reer Somaliland reer Jabuuti waraaqa Jabuuti haystay haga jooga. wasiirkii hore ee hidaha iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Somaliland Cabdulqaadir Waaberi Casoowe oo isna xafladaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday horumarka baahsan ee ay Jabuuti gaartay isaga oo sheegay in horumarkaasi uu yahay mid muujinaya siyaasadda hagaagsan ee dalkan ku hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. mudane Casoowe ayaa sheegay in labada shacab ee Jabuuti iyo Somaliland ay yihiin laba shacab oo walaalo ah oo isjecel wuxuuna intaasi ku daray in haddii ay yihiin siyaasiyiinta Somaliland iyo madaxdooduba ay u sahli doonaan dadka reer Jabuuti ee ku nool Somaliland in si fudud ay uga qayb galaan doorashooyinka soo socda. Maxamed Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan Hoon Cable TV Jabuuti.